Aqyari kusoo dhawaada mar kale iyo cashiradani xirfadaha qaaska ee wanaagsan aan ku baranayno computerka. Marka kusoo dhawaada boggeena Somali YouTube. Maanta waxaan baranaynaa sida loo geliyo jaantuska mawduucyada ay ka kooban tahay documentiga ma waxa la dhaho table of content waxa la dhaho sida loo geliyo documentiga yaan maanta baranaynaa. Waa إذا رهضي وكليات تسنية دوكومنتيغان وكنا جانتوسكي أما محوها table of content أو تسنية قيبها أي كقوبان تايم هي دوكومنتيغان قيبها أي كقوبان تايم مركا تداسي لو كليا أيان ما تبرنا دوكومنتيغا سيدا لو كليا سدح تلابو أو مهمة يتقاعد سامرة دي أردتين table of content أدكليسو دوكومنتي مركا maanta midka basiga ugu wanaagsan ugu asaasiga idin baraya inuu baranayna noocyada kala adag kulli mustaqbalka insha Allah soo gelin doona. Marka talaabada koowaad waxa weeye dejinta documentiga. Marka hore waxay macnaheedu tahay setup inaad ku sameyso documentigaaga, inaad dib u habeyn inaad ku sameyso habayso oo aad u diyaariso in muxuu ahaa table of content lagu soo dejiyo ama la geliyo. Sidaa darteed waxaad sameynaysaa talaabada koowaad dejin documentiga aad ku sameynaysaa ayaad ku bilaabaysaa. Talaabada xigta waxa waa gelinta jaantuski ama insert table of content. Table of content oo documentiga la geliyo waa talaabada xigta. Kadib talaabada saddexaad waxa weeye nidaaminta jaantuska ama formatting table of content. Table of content aad gelisay yaa inaad nidaamiso rabo si professional inuu noqdo oo muxuu ahaa aad nidaamiso dib haween ku sameyso waa markaad iska soo geliso waxa waa si default camal ku soo gelaya marka ma quruxsanaanayo aad raba inaad qurxiso oo hagaajiso. Good. Marka table of content markaad document gelinayso casharka si fiican u dhageyso fadlan. Document markaad gelinayso waxyaabaad u baahan tahay jiro macnaha oo shaashada inay kaaga shidnaadaan loo baahan yahay oo ama muxuu ahaa shaashada inay kaaga furan yihiin loo baahan yahay. Saddexdaas shay ayaa loo baahan yahay ku furan yihiin. Navigation pane waxa la dhaho inuu ku furan yahay la rabaa. Style box waxa la dhaho inuu ku furan yahay la rabaa. Paragraph markers inuu ku furan yahay la rabaa. Saddexdaas screen ayaa la rabaa inuu kaaga furan yihiin hay'ad halka shaashada. Saddexdan qaybood inay ku furan. Saddexdeeda hal mar ay isla wada furan yihiin. Midba markaad kan kale u baahato isaga ayaad isticmaalaysaa. Marka waxyaalaha inta tusinaya navigation pane-ka waxaan ku noqonayaa halkan table of content-gan documenting table of content mar hore aan geliyay ayaan ku laabanayaa. Markaan ku laabto halkan waxaad arkaysaa taabanaya view markaan taabto sida navigation pane-ka lagu tago waa kana navigation pane. Marka ana waxaan isticmaalayaa MS Word 2016 aan isticmaalayaa. Marka dabcan 2013 kan waa noocaas laakiin 2010 iyo 2007 ka ay ka yar dugan yihiin oo meel kale laga aadaa dhici karto. So 2016 ka waxa waaye navigation pane waxa taabanaysaa view marka taabato navigation pane waa kana halkaas aad tick siinaysaa. halka markaad ku dhufto qaybtan soo bixi qaybtan navigation pane la dhaho. qaybtan markaan sida ugu dhufto kale waa ka table of content. haddaan ku dhufto table of content ay soo bixinaya. fish haddaan ku dhufto fish qalinka kornaa soo bixinaya document marka waa ka xawaankaas. marka table of content-ga waxyaabaha uu qabto ama muhiimadiisa waxa weeyaan kow in mataqaanaa uu ku tusiyo table of content-ga waxaan ka wadaa navigation pane-ka muhiimadiisa uu leeyahay waxa weeyaan kow in table of content-ga aad gelin doonto documentiga qaabku uu ekaani doono inuu ku tusiyo sida hadda halkan oo kale aad fiiriso qaabku uu ekaan doono structure ahaan inuu ku tusiyo ka caawinayo kow. Labo oo wuxuu ka caawinayaa navigation pane-ka in aadan ka tegin qayb kamid oo documentigan qayb kamid ama topic ama subtopic waxa dhahdaba ama mawduuc waxa dhahdaba kamid oo muhiim ah in la geliyo table of content-ga la geliyo loo baahay inaadan ka tegin ka caawinayo. bas mar walba hal indhaha sidan u marin kartaa hal mar ka maqan waad garan kartaa. Okay ama hadaad rabto waxaad samayn kartaa click fish hadaad taabato oo kale fish ku geynaya kan ku xiga hadaad taabato wax kale marka waxaad aadan qorin oo aadan halkan gelin hadaad meelahan ku aragto kadib waad geyn kartaa. So navigation pane waa kaas. Navigation pane-kaas marka inuu ku furan yahay. Next waxa waa style box-ka waxa waa hadda adigoo home jooga adigoo sida uu kugu joogo qalinka ee halkan imaanaysa. Okay calaamada yar imaanaysa soo baxaya box waa kala laakiin adigu click marka laado waa kana waxa la dhahaa style box. Okay
style box aa la dhahaa iyagoo halkan kuwa nafta styles aa la dhahaa waa kala heading 1 sorry heading 1 halkan noo saaray heading 2 heading 3 heading 4 kulli halkan noo saaray marka halkan waxay soo koraan markaad isticmaashay aniga hadda recently waa isticmaalaya maalmihii ugu dambeeyay marka sida darteeda halkan soo korayaan soo korayaan shortcut waa style box marka kan inuu ku furayaa loo baahay midka saddexaad waa waxa waaye paragraph markers calaamadan waa adoo home joogo calaamadan bida u eg madow dhinaca bidixda bida halka markaad taabato markaad joojiso qaab kale noqonaysa meel alaal meeshu paragraph ku dhamaado iyo iyagana degaysaa calaamadaas aad arkaysa that sign waxay degaysaa meel alaal meeshu paragraph ku dhamaado paragraph dhamaadkiisa ama qayb qoraal oo document kamid ah dhamaadkeeda ama full stop meel ama joogsi meel aad ku samaysay iyo sida u koraysa marka saddexdaas calaamadood loo baahan si aad mataqaanaa table of content u geliso saddexdaas shay loo baahan yahay kaaga furay shaashada marka hadda waan guda galaynaa halkan waxaa ii yaalo documenti iyo halkan igu qoran halkan igu qoran tahay okay okay food for life okay aan dhahna marka waxay ahayd documentigeeni waa kana marka waxaan sameynaynaa qaybtan hore waa title waxaa la dhahaa title page la dhahaa okay title page wuxuu ku tusinayaa ciwaanka documentiga maxay ahayd subtopiga ama ciwaanka yar ama hooseeya iyo wuxuu ku tusinayaa qoraaga ama qoraayaasha hadday dhowr qof yihiin halka ka tusinaya okay so title page-ka qaybtan title-lada iyo ciwaanada iyo waxaas documentiga ciwaanadooda iyo dadka qoraya lagu qoro qaybtan shaqo kuma leeyahay markaas not muhiim maaha hadda qaybtana loo baahan yahay okay marka reportkani waa kana ama documentigani waa tana food security in Somalia introduction most hit areas bararac wada okay so waxaan sameynaa marka saddexda qaybood aan furanaynaa saddexdii qayb aan horta furanaynaa navigation pane kan furanaa waxaan dhahay view navigation pane waa kana hadda fiir waxba kuma jiro everywhere ilan maan gelin weli table of content okay perfect hadana home and add title style box soo bixin halkaas ay saarnaa tan oo soo bixinaa saddexdaas qayb ay fureen haddana marka ka adeeganaya mogtahay okay perfect now waxaan sameynaysaa marka just before intaanan u gudbin waxaan ku bilaabaynaa horta kan inaan isticmaalo waxaan ugu xigaya inuu markaan kan gelino kan markaan isticmaalno kanna wuu sii gelaya waxalaala wixii halkan aan ka sameyn xagga inoo gelaya kadib waxaan aadaynaa kaas marka waxaan ku bilaabaynaa marka waa kana qaybay tilaabooyinkii waa kana tilaabada koowaad waxay ahayd dejinta documentiga setup okay setupkii wayaan setupkii hadda waa kana oo ku jirnaa setupkii okay setupkii aan ku jirnaa haddaan bilaabaynaa setup documentiga waan diyaarin rabnaa si loo geliyo muxuu ahaa table of content okay so waxaan sameynayaa marka example yar wax yar aan rabaa inaan idin tusiyo tusaale ahaan waxyaabahan sida loo kala horeynay styladan waxaa la dhahaa heading 1 kan heading 2 heading 3 heading 4 waxyaabahan mid walba wuxuu yahay inaad fahanto muhiim waaye documentigan kulli halka documentiga way ku wada jiraan hadda laakiin keeba okay so food security in Somalia topic awen waad aragtaan okay perfect waxyaraan halka ka dhamaystiranayaa Somalia okay Somalia okay documentigan marka documentigan saddex qayb uu qaybsan yahay qaybta koowaad waxay ka hadlaysaa qaybta koowaad waxaan leenahay waxay ka hadlaysaa food security ka hadlaysaa qaybta koowaad
food security in Somalia ka hadlaysaa document qaybtiisa koowaad qaybta xigta waxay ka hadlaysaa education in Somalia qaybta saddexaad waxay ka hadlaysaa unemployment in Somalia ee ka hadlaysaa marka saddexdaas qayb ay ka hadlaysaa saddexdaas qayb oo muhiim ah oo muhiimka ay u qaybsantahay document marka ciwaanadan waaweyn ee ugu sareeya sida hadda halkan ka maran food security in Somalia markaan qoran ka dambay iyo introduction qornay kadib most hit areas halkaasaas u sii qoran qaabka u socdo marka topicadan waaweyn ama ciwaanadan waaweyn mawduucyadan waaweyn ee sarsare sida hadda food security education and employment kuwa hadda aan idin tusiyay waxaa la dhahaa heading 1 ay galayaan macnaha mudnaantii koowaad ayay leeyihiin heading 1 ay galayaan tusaale ahaan haddaan heading 1 ay galayaan ku soo celiyo heading 1 ay galayaan kuwa ku xiga hoos imaanayo sida hadda introduction iyo most hit areas-ka waxay noqonayaan heading 2 marka wax yaraan rabaa inaan idin fahansiiyo si aad ku kala fahantaan alaabta aan dhahno food security oo kale waxa weeyaan family qoyska weeye okay qoyska weeyaan good introduction iyo most hit areas anana waa aabihii iyo hooyadii way u siman yihiin qoyska labadan okay laakiin markuu aabaha kaas noqdo kan hooyadii ay noqoto hooyada hoosteeda maxaa ku jiro caruurteeda ku jiro okay so waxa weeyaan hadda meesha markaan dhahna most hit areas meelaha ay sida saaidka ay u dhibaataysan oo food security-ga ay saameysay yaan leenahay halkan waxaa ka mid ah leenahay by region inta Bakool region iyo waxaan aan Lower Shabelle region marka by Bakool iyo Lower Shabelle region waxay hoos imaanayaan topican hoos imaanayaan ciwaankan hoos imaanayaan ciwaankan wuxuu hoos tagayaa food security kan wuxuu hoos tagayaa food security macnaha kan wuxuu ka hadlayaa food security kan wuxuu ka hadlayaa food security laakiin kuwan kan wuxuu ka hadlayaa kuwan waxay ka hadlayaan kan midba miduu ku sii xiran yahay kala mudnaan sareeyaan adfaanta umaleynaya okay marka waxaa waaye haddaan si kale afkalaad idinku sheego waxaa weeyaan unit book markaad akhrisanayso oo kale unitki waaye kan kanna waa topic okay kanna waa topic kale okay so topic 1 and topic 2 waa siman yihiin kan waa subtopic waayo wuxuu soo hoosgelayaa kanuu soo hoosgelayaa topicanu soo hoosgelayaa okay topicanu soo hoosgelayaa so waxaa waaye kan waa unitkii buugga aad akhrisanaysa food security in Somalia kana waxaa weeyaan topicii kana waa topic kale kuwana waa subtopico waxay hoos imaadaan kan hoostiisa haddaan qaybo kaga hadalna hadda kan oo kale hoostiisa haddaan wax gelino oo asaga hoosgelayo waxay noqonayaan iyagana subtopic ay noqonayaan marka kaa sare wuxuu noqonayaa heading 1 kan iyo kan way facsiman yihiin waxay noqonayaan heading 2 conclusion kana heading 2 noqonaya conclusion ka isagana heading 2 noqonaya okay then markaan inta imaano most hit areas markaan dhahno areas kii halkan ku koobnay markaan ku magacaabnay meelaha ay dhibaatada gaartay aan ku magacaabnay marka meelahan hadda magacyadooda aan sheegay waxay hoos imaanayaan halkan kuwan marka waxay noqonayaan heading 3 ay noqonayaan heading 3 ay noqonayaan okay heading 3 ay noqonayaan so marka waxyaabahaas hadda sameynayna marka waxaan sameynaynaa waxa heading 1 qayb walba oo food security employment iyo education ba sida hadda idinku sheegay qaybahan ay kala ay u qaybsan tahay marka waxaan rabaa inaad fahantaan idinku fahansiiyo wax runa ma waxaan meesha geliyay waan iska populate gareeyaa on screen-ka marka laakiin qaybahaas aan idinku tusanaya marka waxaan sameynaynaa waxaan style-kooda siinaynaa food security in Somalia macnaha heading 1 yaasha ku jiro dhammaan documentigan yan style-kooda siinaynaa kanaan ku bilaabaya qaabka loo siiyo style-ka waxa weeye waad highlight gareynaysaa asag iyo qaybta dhanneed iyo waxaad isla highlight gareynaysaa calaamadii barakad muxuu ahaa paragraph mark waad highlight gareynaysaa markaad highlight gareyso waxaad dul tagaysaa heading 1 qalin markaa sidaa u dul saarta adoon toojinin dhinac midigta u soconaysaa godkaas yar eed qodaysaa
okay godkaas yar markaad qodo halkan aad taabanaysaa update heading 1 to match selection okay waa taabanaysaa markaad taabato maxaa dhacaya markaad tuujiso maxaa dhacayo navigation banki ku gasha fiiri halka navigation banki ku gasha navigation banki ku gasha okay inta sameeyno heading 1yada kala dhan baan aadayna marka formatting waan ku sameyn karnaa oo nidaam waan ka bedeli karnaa hadda laakiin hadda ma rabno formatting inaan sameyno oo formatting waa style-ka waxa waaye tilaabadeena waxa waaye saddexaad weeyaan okay so waxaan aadayaa marka heading-yadan sarsare waxaa kaloo iigu xigayo heading 1 asagana education in Somalia sidoo kaleete tookadan marka maadaama heading 1 mar hore aan soo set gareeyo soo nadaamiyay on soo format gareeyay tookadan waan tuujinayaa korkiisa la tagaya waan tuujinaa halka ma tagayo halkan la tagaya marka sida u highlight gareysto halkan la tagaya waan tuujinayaa kanna waan la soconayaa wax allaale wixii aan style u sameeyo waa inay halkan galaan so ina isha halkan ku haysaa halkan isha ku hay marka saasan u highlight gareynaya kadib waxaan dhahayaa heading 1 waan tuujinaa oo kaliya hal mar taabanaa warka way galaysaa marka way galaysaa kadib waxaan noo haray heading 1 kale oo kana sidoo kale waan tuujinaa heading 1 galaysaa marka okay inta markaa sameysid heading 1yada dhan waa dhamaysan heading 1 dhan waa dhamaysan marka waxa la hadda heading 2 aan aadin heading 2 waxa way heading 1 kan heading 1yada meeshan aad gelisay mid kamid ah way hoosta ka soo galayaan ilaa kuwan waa hooyadii mugta kuwan hooyooyinkii aabooyinkii ama qoysaskii waa kuwan qoys 1 qoys okay so mid walba halkan hoos ka galayaan so aan aadna marka heading 2 hadda aadina heading 2 qaybtan weyn ee documentiga qaybtan hore ee documentiga ee food security ka hadlaysa heading 1 kana noqonayo introduction heading 1 noqonaya heading 1 mar sidoo kale hadana markaan qalinka saa heading 2 noqonaya heading 2 markaan qalinka sida u saaro ilaa marka fiir hadan heading 2 bilaabaya marka waa inaan nidaamkii aan hadda geliyo waay marka waxaan leeyahay halkan aan galayaa halkaas aan taabanaa kan taabta fiir meeshu galay food security host ka galay halkan kuma soo xigsanayo waxaan nidaam isugu xigaa okay kana wuxuu noqonayaa heading 2 isna heading 2 noqonayaa waxaan iska taabanayaa tookadan heading 2 aan taabanayaa halkaas hoos ka galaya conclusion kiina hoosan u baxaya wuxuu noqonayaa heading 2 asagana conclusion ka gabagabada ah so waxaan qarayaa heading 2 okay marka food security qaybtaas documentiga food security ka hadlaysa waxa soo hoos galay introduction key most hit areas key iyo conclusion okay so qaybta kale aan gudbaynaa education in Somalia heading 2 wali waata sidii ma tuujinaynaa mar hore heading 2 soo hagaajinay mugta so galaysa fiir education hoosteeda galaysa level of education ayadana sidoo kale heading 2 galaysa okay conclusion qaybahan dhan conclusion ay leeyihiin conclusion sidoo kale waan gelinayaa okay heading 2 tuujinaya okay qaybtan aan imaanayaa heading 2 geeda kan weeyaan introduction heading 2 okay waan gelinayaa courses gelaya kama galaya marka as now okay conclusion ka aadayna marka conclusion ka aadayna heading 2 okay marka heading 2 yadis waan dhameystirnaa marka hadda heading 1 marka hore ku bilawnay waxaan food security in Somalia education in Somalia and then unemployment in Somalia ay hayaan so heading 2 yeesha qaybta koowaad waxa introduction most hit areas conclusion kana wuxuu introduction levels of education conclusion kana wuxuu introduction courses and conclusion okay so on soconayna marka waxaan u haray marka heading 3 documentiga haduu heading 3 uusan lahayn waad ka gudbaysaa dib uma sameynaysid uusan lahayn laakiin hadda uu leeyahay ilaa heading 4 uu lahaan karaan macnaheedu waxa waaye mid kale sii hoos gali kara marka waxaan sameynaynaa xaga sare aad waxaan haddana soo garaynaa heading 3yada heading 3 da xaga ka bilaabanaysa waa kana most hit areas meelaha dhibaatada ay gaartay waxa kamid ah by region so by region waxa hoos imaanaysa halkan heading 3 noqonaysa heading 1 heading 2 heading 3 heading 3 marka ayadana sidaas kale waxaa la garanayaa waxaan tagayaa heading 3 dhinaca midigta halkaas godkasan qodaya halkan taawana okay heading 3 fiir meesha gelayso waxay galaysaa qaybta kale qaybta koowaad ee documentiga wali waxay hoosta kasii galaysaa most hit areas oo meesha hoos imaanaysa hoosta kasii galaysaa okay
kan asagana bible call waa sidoo kale hadda waan toojinaya waxaan leeyahay heading 3 ku xigsanaya okay lower shabelle heading 3 uu galaya okay sidoo kale halkan aan aadayaa heading 3 waxa waaye pre-unit levels of education level of education level of education ka ku socona hatta qalinka ku socona kan hatta ku socona fiir ku tusinaya fiir meeshan hadlayda kan markaan ka gudubna halkan noo aada so waxaan leenahay level of education hoosteeda maxaa ku xiga waa kana taas markaan tuujina heading 3 aan leeyahay hoosteeda galisa okay primary waxaa pre-unit primary oo heading 3 garana iyo secondary saddexdaas qayb waa level of education heading 3 uu galaya okay so qaybtan imaanaya sidoo kale waa ka fiiriya causes dhibaatooyinka unemployment-ka waxa keenay oo lack of employment skills kamid ah nepotism favoritism and clanism kamid ah marka waxa weeyaan waxay kulligood causes-ka waa topic-kana ka hadlaya iyaga hoosta kaga jira so halkana ka bilaabaya lack of employment so waan tuujinaya heading 3 kana sidoo kale heading 3 kana sidoo kale heading 3 waa ii dhamaatay marka waa diyaar marka okay so halkan fiiri marka okay halkan fiiri waa noocaasay noqota marka table of content-gaada noocan uu ekanay marka documentigan waan set up gareynaa hadda waan nadaaminay oo waan dejinay dejin baan ku sameynay diyaar waa hadda table of content-ga markaan gelino waxa waaye waa si nidaamsan u garaya good marka intaas markaan bogo waxaa ii dhiman inaan table of content nidaamkii talaabadii labaad waxay ahayd inaan dejino ama gelino jantuski ama table of content inaan insert gareyn marka taasaan hadda u guda galaynaa waxaan leeyahay marka kuwan waan iska xirayaa marka kan halkan aan ka xirayaa waan ka xirayaa kana halkan aan iska jiraa I'll kill both of them waan iskaga gudbaya marka waxaa ii soo haray paragraph mark ii soo haray marka waxaan rabaa inaan table of content geliyo table of content-ga inta badan waxaa la geliyaa page independent oo isaga leeyahay qaas waa macnaha page dhinacna table of content kaga jira dhinacna maxay ahayd qoraal kaga qoran si rasmi ma aha professional way of doing it ma aha maxay ahayd official way ma aha marka page la rabaa kaligiis page-ka rabna marka inaan abuurno fiirsa marka inta iyo waxaas kuma sameynaysid page-ka hadaad ku samayso waxaa waaye وقربت so you guys listen very carefully marka page-ka marka waxaan rabnaa inaan gelino page table of content-ga waxaan rabnaa inaan gelino hadda jeer waxa la geliyaa title page-ka qaybta title-lada ku qoran ee ciwaanka document-iga ku qoran yahay oo kana iyo qaybtii ku bilaabanayso main document-iga muhiimka ah meesha ku bilaabanaya dhexdooda la geliyaa marka waxaan rabnaa hadda inaan gelino by Professor Ahmed Samatar Mission iyo Mr. Nick Clark labadaas oo qorayaashii muxuu ahaa document-igan ah oo muxuu ahaa page-kan koowaad ee title-lada ku qoran meesha ku dhamaanaysa iyo waxaan rabnaa food security in Soomaaliya dhexdooda inaan page gelin halkaas la rabaa inaan page gelin page-ka marka qaabka lagu gelinayo waxaa waaye alaabtana ku caawinayso paragraph marking-kana ku caawinayo waxaad gelinaysaa waxaa la dhahayaa section breaks aad gelinaysaa okay so halkan hadda waxaan imaanayaa marka kow tan hooseyso ma imaanay tan ku xigtan qalinka saaran you have to choose marka mouse meel aad ku choose garayso aad doorato waa meesha gelin aad ka bilaabi lahayd so halkan ka bilaaba macnaheedu waxa waaye page-ka aan gelini doono qaybtiisa sare waa inay halka ay noqoto halka waa inay igu toosta okay kow kan hoose kan ku xiga labaad inay ku toosta qaybtiisa sare page-ka aan gelin doono marka waxa halka aan joogo waxaan tagayaa layout ana 2016 isticmaalaya kulli ma qaadata meesha ku jira breaks taawanaysa breaks marka taawad halka aad qodo you go all the way down to section breaks atigaysa section break qaybtan qaybteeda oo koowaad aad qaadanaysa next break waxa la next page kaas taawanaysa marka taawato halka lamba ku gelay qoraalan ku soo qorto waxa ku soo qormayo section break next page okay macnaha waxa waaye page-kan hadda aan joogno page ku xigo aan rabanayna next page hadda create next page markan ma noqonayo kan ma noqonayo mid anaga soo gelino noqon doona so page already qaybtiisa sare waa nala magacaabay waa ta qaybta sare halkaas waay qaybta hoosena meelahan imaanaysa okay now intaas markaan imaado halkan aan imaanaya xaggan hadana sidoo kale maxay ahayd waxaan sameynayaa marka
sidoo kale middan hoose ma ahana tan labaadaan imaanaya tan hoose ma ahana qalinkayga tan labaadaan imaanaya sidoo kale halkii aan ku noqonayaa breaks section breaks next page aan dhahaya okay ma fahanteen wariyaa halkaa marka maxaa kusoo gala fiiriyaa markaasaa dhahdo waa kaa qaybtii sare oo pageka hadda aad abuur rabto qaybtiisa sare wataa qaybtiisa hoosena waa taas page waa hadda abuur rabno okay perfect now intaas markaa samayso meeshaad arkaysa waa iska yar ciriiri marka halkaa qalinkaa dhagdhag ku siiso marka wax yar hoos u bax oo interka inta space yar adigu meeshan space ka samayso space aad wax aad ku shubto muxuu ahaa space aad ku shubto laakiin u fiirso markaan hadda inta dhaho uu kan socdo sidaas uu socdo inta aan leeyahay fiiri documentigan qaybtiisa hore ma dhaqaaqayso iska taagan tahay ma dhaqaaqayso halkeeda taagna ma dhaafayso halkeeda laakiin haddii inta caadi aad iska isticmaal lahayd oo nidaamkan aad isticmaal lahayd mar walba inta aad dhahdo documentiga qaybtiisa hoose u socotaa okay hoose u soconaysa halkan laakiin kan halkan ma dhaafayo okay so waxaan sameynayaa marka space asina marka waxyar space kama weyneyna boggan dhan ilaa waa bogga aan abuur rabna mogtahay so caadi halkaasaan okay so halkaasaan joojinayaa so waxaan rabaa marka what I'll do marka waxaan sameynayaa weli waxaan ku shubi rabaa marka jaantuskii table of content-ga ku shubi rabaa marka halkan ay imaanaya qalinkay halkan keenaa taa sare ma qaadanayo tanan qaadanaya okay tan sare fiiriya boggan iska dhaaf halkan mogtahay ilaan kan qaybtan sare waxay ku dhex jirtaa boggan title page-ka marka asaga halkaas waxba haba ku qorin okay waxba haba ku qorin kanaad joogta kanaad adiga leedahay kan soo kan qaybtaas sare ma ahana qaybta ku xigto ka bida sare mooyee bida labaad bida iska dhahayna bi ma ahana just telling you ku baraya okay so bida sare mooyee bida qalinka keento intaas markaad marayso waxaad haysaa marka reference laga soo geliyaa muxuu ahaa table of content idan soo kusoo shubir waa kusoo saaraya meesha reference markaan dhaho table of content marata table of content qaybtaas kor qod qaybta madow ee godka qod tuuriya markaad qodo halkan imaw more tables wax iska dhaaf custom table of content halkaasi alaabtana kusoo baxaysa alaabta marka kusoo baxdo hyperlink calaamadan anaga hyperlink ma rabno waan ka saarayna calaamada tiga fiiriya way saarneed waan ka saarayna anaga marka okay intaan imaanaya labadan ha iska tigareysnaadaan labadan sidoo tigareysna waa baahanahay meeshan waxaad ka dooranaysaa table of content-taaga adiga leader-ga maxaa noqonaya ma kana rabtaa noocan inuu noqdo ma noocan ma leen inuu noqdo maarta midka anu kana jeclahay okay I'll just keep that xagana format from template diyaar waa faraaka qaad xagan waxaan rabaa table of content-ga inta level uu ahaa anaga waxaan haysan heading 1 heading 2 iyo heading 3 bas ka kooban yahay table of content heading 4 malihi heading 5 malihi wax ka sii dhaafay ka sii sareeyana malihi waa heading 1 heading 2 iyo heading 3 marka waa saddexda level waa inay halkan ku qoran tahay wax ka badan kugu qoran tahay waa in adiga saxda halkan ka saxda hadii ka saano kale ay ku tahay 4 ay ku tahay dan waa inaad dhaxdaa anigu saddex raba ilaan document-gayga waa saddex level bas leedahay perfect inta markaad marayso option-kan iyo modify-gan waa aadi kartaa laakiin gadaal ka sameynayna waxaas okay so perfect marka waxaan leeyahay okay okay markaan dhaho table of content wuu isoo galaya meesha waa kana okay wuu soo galaya asagoo raf wuu soo galaya waa iska quruxsan yahay it's nice okay laakiin waan sii nadaaminaynaa halkii soo galaya page-ki asagaa soo galaya okay page-kii buu soo geli markuu soo galo aan sameynaynaa marka table of content-ga meesha uu noo soo galay table of content-ga mar meesha hadduu noo soo galay waxaa noogu xigtaa marka tilaabadii saddexaad oo maxay ahayd nadaaminta jaantuska ama format table of content-ga inaan format gareyno waayo okay in la format gareeyo waayo marka okay so one thing marka aad sameynayso waxaa waaye hal mar dashiisa ku dhufo markuu sidaa u highlight gareysmo right click markaad dhahdo waxaad tagtaa edit fields markaad tagtid meeshan calaamadaas inay check-gareysantaa la rabaa hadday check-gareysneen waa inaad check-gareysa hadday ku check-gareysantana good waaye waxaa la dhahaa preserve formatting during updates table of content hadhow markaad update gareynayso formatting hadda aad ku samaysay inuu intact ahaadaa la rabaa uusan ka bixin
marka weligaa kaa inuu check garaysnaado oo sida tick ay u saarantaa la rabaa marka okay bala soo noqonaya unexpected end of format how undo double okay right click okay no okay right click okay edit diyaar no saarantahay marka okay so way noo saaran tahay samaaha okay calaamadaas way noo jeegaraysan tahay okay so intaas hadda maxaan sameynaynaa marka formattingka ku sameynaynaa hadda nidaaminaynaa ogtahay marka waxaan leeyahay waxaan rabaa dabcan maybe inaan ka bedelo font size-kan fonts noocuu yahay waxaan dhan ka bedelaan rabaa okay marka waxaan leeyahay halkan aan tagayaa waxaan u bedelayaa qaybta u bedelayo waxa waaye header 1 hal mar wada bedelaya heading 1 heading 2 hal mar wada bedelaya heading 3 hal mar wada bedelaya salahan heading 1yada waa kuwan food security oo ku afeeri qayb kale yahay quruxda fiiri okay so heading 2 hadaan rabo inaan wax ka heading 1 hadaan rabo inaan wax ka bedelo iyaga highlight gareena ka sida waxa la yiraahdaa maxal calaamada paragraph maaga sidayna okay markaan sidaayo halkan fiiri oo ku weecinaya okay marka sida waxa highlight gareeso qalinka sidaaso alaabtana ku soo baxaysa so ani waxaan rabaa inay ii ahaato New Times Roman for example inay noqoto New Times Roman inay noqoto muxuu ahaa halkana inay noqoto 16 okay waa 16 maxmo and then bold inay ahaato yaan rabaa bold inay sida qalinka qada ugu badanta yaan rabaa okay perfect so kulli sidii wada noqdeen fiiri heading 1-ada dhan waa kan waxay noqdeen way isku bedeleen New Times Roman okay heading 1 ka aadaya sidoo kale halkan tagaya saasay ugu soo baxaysaa eegana 14 waa maxmo it's good laakiin waxaan ka dhigayaa bold ka dhigaa my bold ka dhigaa that so whatever way adigu waxaad doontaa ka samaysan kartaa meesha halkan ka bedelaya New Times Roman ka dhigaya okay so 14 ay ahaato tii hore waxay ahayd 16 tan 14 ay ahaato perfect so heading 1-yada dhan fiir ayagu heading 2-yada fiir way isbedeleen waxay noqdeen kuwana weli clear nooga jira okay heading 3-da hal xabba lan gacanta hal xabba la sida highlight gareena sidoo kale waxaan ka rabaa inay noqdaan Times New Romans inay noqdaan fontigana to alif uu noqdo waxbana uusan ii highlight gareysmin oo qada waxa ku badinaysa sas ii ahaanaya okay perfect haddii aad rabto table of content-ga fiirisan dhinacan uu yar yahay dhaxda bas ku hagaajisay maybe haddaad rabto inaad weyneyso waad weyneyn kartaa adoo sidaas right click aad leedahay then paragraph aadaysa okay paragraph markaad aado then left-gan oo 0.15 ka yaad maxay ahayd yaad wax ka bedelaysaa no really no not like that sasma adoo sidan uu ku yahay yaa waxa sameynaysaa xaalaysa layout and then layout waxaad aadaysaa layout and then you click here halkan taabani box-kana ku soo baxayo so waxaan rabaa meeshan hadda dhinaca left waa 1 anu 1 uu yahay dhinacan wuxuu yahay 1 I think that's fine marka hadaan rabo inaan intaas ka sii yareeyo tanaan badinaya 1.2 oo kale 1.3 tan 1.3 labada dhinac okay 1.3 okay marka this section aan dhahay marka halkan iska ilaali this section aan dhahay this point forward ma dhahay this section aan waa qaybtan hadda ku highlight gareysan documentiga dhan hadin okay this section so okay marka oo uu yaraanaya marka saas uu dhuwanaya saas quruxsan qaabkaas ku quruxsan perfect inta kadib waxa sameynaysaa spacing-ka fiir u dhaxeeyo hadaan highlight-ka qaado fiir spacing-ka u dhaxeeyo waa weyn yahay markiisa spacing-kan marka inaan yareeyno yaa rabnaa waxoogaho marka waxaan sameynaynaa taasaan highlight gareynayaa heading 1-da marka hore ku bilaabaya okay right click markaan dhaho paragraph aan dhahayaa paragraph markaan taabto halkan waxaa igu qoran 4 points waxyaaran ka yareynaa 4 points okay so okay qalinkaas ay qoranaya halka waxaan leeyahay waxaan rabaa 2 points okay 2 points aan rabaa halkan zero ha ii ahaato
halkan waxaan dhahaa single page. Okay, wuu ii yahay single. Okay, so okay dhahay marka wakaa wuu kusoo yar dhawaanaya, isku soo dhawaanaya marka wuu isku soo dhawaanaya. Okay, isku soo dhawaanaya. kuwana sidoo kale saaid u weyn yihiin marka sida way kala fogyihiin heading tuyada way kala fogyihiin ayagana sidoo kale waxaan leeyahay kana qaadanaya ilaa halkaas, then right click waxaan dhahayaa paragraph markaan dhaho halkan maybe 2 aan ka dhigayaa 2 aan ka dhigayaa maybe halkan 0 intana single. Okay, aan leeyahay okay ayagana iskugu dhawaanaya. Okay, so quruxdaas ku noqonaya. markuu quruxdaas ku noqdo noocaas ku noqdo waxaa sameynaysaa markaa waa diyaar. hadda diyaar way ku taqaybtay, diyaar weeyaan. waxaa sameynaysaa you come here, waxaa ka qaadaysaa calaamadan aad hal mar dhagsiina siday uga kacdo meesha paragraph marks. hadda waan bognay formatting keeni ka qaadayna waka table of content keeni. marka our table of content is so automatic, waka automatic waan gelin. hadda waa diyaar marka saas isku xigaya. so straight inay dhinacan ka noqdaan ma aha hawo male straight waxaa un siman wixii isku level siman. kuwanaya kan iyo kan iyo kan waa heading 1 yaal weeyaan. level koowaad way siman yihiin ayaga, kuwa labaadna way siman yihiin ayaga waa siman fiiriya waa wada siman yihiin. Okay, kuwa saddexaadna ayaga waa siman. marka waxa way qaabkii paragraph weeyaan uu ku set gareena. paragraphs markii la qoray meesha laga bilaabo taqaana page-ka. Perfect. So this is our table of content. hadda waan gelina diyaar. marka waxaan rabay inaan ku tusiyo wax kale oo okay, so we come back. Let me bring calaamadii because page iga soo gala dhaxda. Okay, way iga fogaatay marka document way iga fogaaday page kala ku jira. so let me do calaamadan soo celinaya and then intaan qalinka keensanaa then back wala back. Okay, let me say back markaan dhaho halkaas ay imaato so hadda ka bixinaya marka. Okay, so table of content gaygi waa page 2. page 1 waxa ii saaran title page 2 waa table of content gi halkan waxa ii saaran page kale laakiin wali fiiri waxa space yara meesha u dhiban. calaamadan soo celinaa, calaamadaas markaan soo celiyo maybe I'll do like this. halkaas aan qalin keena put back. so bahar no really I'm fine, I'm good to go. waa diyaar marka. Okay, so waa diyaar. halkaa ma dhaafay fiiri ma soo dhaafay page kaas fiiri kan ma soo dhaafay halkaa ma soo dhaafay. so aniga waxaan leeyahay marka I don't want this. Okay, so intaas markaan joogo waan ka saaraya marka. Okay, perfect. so waa ka document-gaygii waka table of content page 1 uu yahay, page 2 uu yahay. document-gaygana waxay ugu jirtaa page 1 ay ugu jirtaa. Okay, page 1 ay ugu jirtaa. page 2 ay ugu jirtaa. main document-gii page 2 ay ugu jirtaa. so title page-gayga waa ka page koowaad waa table of content waa kana waa kana. so that's beautiful. so waxaan rabaa marka inaan waxaan soo celinaya calaamadii because table of content naftiisa ciwaankiisa inaan qoro waay. calaamadii hadda aan ka tagay waa tan marka. halkan waxaan ku qorayaa marka table of content. dan waxaan waxa yihiin inaan magacaabno waa moogtahay. waxaan waxa yihiin waa table of content. Okay, table of content ku qoraya halka. markaan ku qoro waa highlight gareynaya ka highlight gareeyo maybe waxaan ka rabaa 12 inuu ii noqdo italics, inuu ii noqdo centered, and then maadaama qayb cusub aan kusoo kordhinay documentiga waxaan rabaa table of content-gan inaan update gareyno. Okay, marka waxaan sameynayaa saasaan ugu dul dhufanaya right click markaan update table and in update entire table and entire table book asina. so muxuu sameynayaa marka okay, calaamadaasaan ka bixinayaa. waa table of content waa diyaar. marka haddaan update dhahayaa update table entire table book.
Okay. So table of content iyaga marka waa ka my table of content is here halkaas ku jira documentigaygana waa diyaar hadda marka so table of content-ga waxyaabaha haday muhiim navigation pane waxaan idin dhahay view navigation pane waa kana marka table of content-ga sida uu ugu jira documentigaaga oo nin boss u geesho document weyn oo inta soo boga waxa waaye xasaan inuu dhaho mar walba scroll-kan uu isticmaalo waa laga qorshiyay wuxuu isticmaali karaa tan uu la soo baxay mar hadduu arko in table of content uu ku jiro wuxuu ogaanayaa document-ga inay format gareysan tahay marka wuxuu furanayaa navigation pane-ka mar qaybaha uu rabo asaga halkan uu ka wada arkaya moogta qaybihii dhan waa moogta kuwa ugu muhiimsan asaga uu daneynayo akhrina marka halkan uu taabanaa markuu taabto fiir waa courses halkii qalinka markaas ugu geeyna halahan uu akhrisanaa marka waa ka tagaa hadduu rabo level of education kadoo level of education click dhahaya halkaas uu qalinka usoo koraya halahan uu akhrisanaya level of education kula akhrisanaa bis goodbye marka saasuu ku caawinaya oo xataa qoraal akhrintii documentiga uu kaaga caawinaya table of content-ga marka la geliyo documentiga عشركين هالكاس كسوق وكوينة السلام عليكم هدي وعشركة عاد كهشي فضلا لايك صار بيتكين الصومالي السلام عليكم ورحمة الله